الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادة شبكة لجبرتو علمي ملتي ميديا إيها قبائل.com إسلام مركزنا إذا كسر جد بينه برنامج وحضروا لبرشدة برنامج كنا نقول دبص على برنامج كي تحنا هاي نكجهل لنا دولارياشة وطبعا أتكسر دعوتين برنامج كي كان كهرية شركة أدو حسابا وعديان إذا حسوسيو إنه كسر قادني لبني نوين دولار أو نكله أو صدحات أو دولار قبل أدوني barnaamijkeena waxaynu ku eegi doonaa Siciid Indhoole oo kamid ahaa saddexdaasi nin sheekadii ama qisadii dhex martay isaga hooyadii iyo walaalkii taawasho wanaagsan Soomaalidu aad dhaqankeedu mid u gargaaray ma sideen dareensan dadka naafada oo qiimo fara badan ama naxariis fara badan sidee Siciid Siciid waxa ku idin lahaa horta abwaan erayga leeyahay abwaan baan dhinac fadhiya Siciid Indhoole baa leeyahay aniga ay u khaldan waayahay ka soo Siciid Indhoole aankii su'aasha noqonaya waxa ku weydiin lahaa nin abwaanna maadaama tahay qofka ugu naxariista badan qofka Indhoolka yaa waa okay aniga haddaad weydiisay Soomaalida waxa tahay nimba ciisaanta ceelkeen kulay tayda markaa sheego nimbatii nin walbana haddana tiisu ku soo dheerin doona oo waxyaalaha ay ku fiican yihiin ra'yiga la isku daarsado horta waxaan kugu diidanahay Soomaalidu waa naxariis yar tahay waa kugu diidanahay adduunyada naafada joogta constitutionka iyo sharciga dawladeed ayaa u heliya asa shicibku ma naxariis badna asa Soomaalidu waa aad bay ugu naxariis badan tahay naafada waxay u horaan waxay heli karaan anse say u fahmi lahaayeen ayaa ka madow kaga jira sida aqoontuba u kobocdo tadawurku isku bedelo nolosha inta salahan qofka uryaanka waxaad arkaysaa in la leeyahay hebel goolow waa astaan isagoo haduu ku caqdoodood waa shaqo taala ase Soomaalidu aad bay u naxariistaan waa aad bay u naxariis badan ase fahankii la falgalkii qofkan guruuboon baa ka damay oo dib kale ma qabo waxa uu jeclaan karaa hadalkii uu qiyaasaya taasi waa dareen kale ase naxariista ama jeebka ha noqoto ama wada gudbin ama wax siine Soomaalida aad baan ugu mahadcelinayna yaa ugu naxariis badan haddaad tiraahdo hooyo ugu naxariis badan sheekayran ugu dhacday baan kaaga sheekeynayaa aniga iyo wiil walaalkaya oo isaguna curyaana waxbad kaliya kaga dhacday paralysis wuxuu ka noqday qaar ka dambe gabar yar sida walaalkay miina waxay jirtay labadan gacmood iyo labada lugood muqdisho aanu joognaa xaafadda Bakaaraha xaafad ku dhow hooyana la joogta aabo wuxuu iska tagay aabo iska ducaysan baad Soomaalida oo garanaysaa fadhi ku dirkii iska tagay hooyo gurigii kaligeed baan la joogto maray mid kaayada ka tirto iyo mid ay mar musqusha taabso tira hooyo wata musqusha albaabkii gal oo halkan ha ku taabana ku dhici iyo maray tiiray tirada hooyo timaa u shamayso illa waxbay arkaysaa moogta subaxii dambe baahi baan qabatay waxay go'aan ku gaadhay inay naqaxayso aanu ila Bakaariyo meelaha soo dawrsano waxayna soo saartay baalkan wax lagu jiido oo uriyaan ku fuulo wala kariyo ma dadka qaar yiraahdaan qaar wheelchair baa yiraahdaa qolab waxbay taqaan uriyaankii baa ayaa la saaray ana hooyo waan caawinaya ana waa la taabsiinay xoogkii baan leeyahay moogta wiilkii baan la saaray gabadhii baan soo qabanay haddana gabadhiina wiilkii baa dhabti loo sii saaray isagii waxa la gabadhii saa u hay gabadhii shaarba hooyo la bistay surwaalka hoosta ka shaaq amina seen u shaaq anigina hooyo gacanta midigta qabsaday marka anigu inanta yari wax walba way la socotaa dhagihiin dhiwaaleed ninkan curyaanka isaguna dhagihiin dhiwaaleed oo ishii waxay soo gudbinaysaa halkaas qof dukaan baa soo baxay hooyo weydin taagi doontaa ma garanaysaa adigu waan soo dawarsanay aniga sawirka waa in la soo gudbiyo wixii maqala waan maqlayaa ase wixii araga wala soo gudbinay adigu waa soo dawarsanay maalintii oo dhasilic badan waa la kulanay kiishka hooyo moor gacmihii ay mashquul yihiin kiish baa halka ugu jira wixina la siiyo kiishkaas lagu riday fiidkii baan soo rawaxnay anagoo lacag ilaa 50 lacagti baalweyn tahay sidana gurigii baan ku soo soconaa hooyo markaa waxay kala qorsheynaysaa annagoo inankiina una kaadsin ila wixii waa wax isku wada xirxiran waqti oo wada dhibaataysan oo kaadi iyo gaajaba nahayso oo guriga ku sii socona oo hooyo qaybinayso 50 kun oo saliidii sonkortii wixii u kala jarjaraysa ilaa quraacdi barito ila cid kale wax ka nasinaysa male annaguna indhiga dhaga kala mari ayaa laba nin waxay noo dhigatay isbaar oo malaha iyagu irsaaqo annaga naga sii liitay baan degdegaagu baan diiwas halkii baan lagu qabtay anigu waxaan rabaa hooyo inay wax ii soo gudbiso hooyo maxaa dhacay baan leeyahay maxaa dhacay musbay leedahay ilaahay ka indha tire ku mahdiyo saas ay gujinaysaa
هذه على كل حال وحي هالكن أي كفرتين وريان كبي يجاجين واسعوني مركي شغلته دي عرفني أيام كل هوي محدعي وحي عن هوي صاحي الله أي نقفرتين أنسى إلهي يجا نوصل تري وحكلو نسين كراينا كان كل يوم نتجنا أنا جو كهذه النهاية سنة إلوني قرشي هو ينا إلوني مرجع ينا حدينا نوبتش إسلام ماشي نقول والعقل هو بقول كل شيء كل يوم أنا جو تجنا إسلام تينا أنا بري بس بدو بيلي ميلوريتش أيام بيترنا هذا ما حرسية ها نابل هواية لا وضع بقول مركا إلهي بكون نسيه العقل كبلن أنت النهاية سنة waa tahay daawadayaal waxaan filayaa sheekadaasi aadka u xiisaha badnayd ee uu inooga sheekeeyey Siciid Indhoole ee ku saabsaneyd qisadii dhex martay isaga iyo walaalkii iyo hooyadii waxaan filayaa inaad ka faa'iideysateen isla markaasina aad doola cadeynaysaan waxaa jiri doona barnaamijkan ku xigi doona isla markaasi noqon doona barnaamijkii saddexaad ee indhoolayaasha kasi hordhici maayo isagana halkiisana ku daawan doona barnaamijkan intaasan ku soo gabagabeynay inta barnaamijka xiga ku kulmayno waxa idinkaga tagaya sidaas iyo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh